Bismillahirrahmanirrahim waxaan wanaagsan qiyaarta awada naga daawanaysaa ku soo dhawaada warka telefishinka Hillaac qodobada aad caawa ku daawan doontaan waxaa kamid noqonayo kamadeynta wariye Cabdicasiis Gurbiye oo maanta la soo gabagabeeyay Puntland oo sii deysay sargaal u xirnay wasiirada caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziye Abiikar Nuur oo faahfaahin ka bixisay xaaladii ugu dambeeyay cudurka COVID-19 madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo baaq u diray madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada madasha xisbiyada qaran oo war ka soo saartay go'aankii ka soo baxay shirkii lagu soo gabagabeeyay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday rag lagu eedeeyay shabaabnimo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax oo eedeyn u jeediyay dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Hillaac